dawada wada ma ogtahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud 70 jirka lacagta kaliya ka soo hartay halkii lagu dhaariyay halkii kitaab gacanta looga saaray halkii loogu sheegay inuu madaxweynaha Soomaaliya 4 sano ee soo socota uu yahay halkii doorashada ay ka dhacday Soomaaliya aan wada ognahay xarunta Abizonia in uu xaraashtay in uu siistay xaraash iyo xoolo jaban in uu maanta uu iibsaday meelay farada badnaa aan soo marnay inta badan aan soo aragnay dawladda inta badan la sheegay in ay gadatay oo mas'uul ka yahay madaxweynaha dulaalin fara badan ayaa madaxweynaha waxay uu inta badan aan ogeey in ay u kala gadeen meelihii dawladda danta guud ama dhulkii dawladda hadaba ninkii cafin waayay masaajidka isbahaysiga qaybta ugu horeyso qofkii yaqaan ayaa yaqaanay qayb kamid ah masaajidka isbahaysiga idal la dumiyay ayaa la gatay oo laga gatay ganacsado hadaba ninkii meeshii lagu dhaariyay iibsaday ninkii meelihii farada badnaa oo danta guud iibsaday meeshii doorashadii ay ka qabsoomi lahayd 4 sano markii uu dhamaato iibsaday ninkii carwada qaranka iibsaday ninkii xaafadda kalluunka iibsaday hadaba ninkii xaafadda dabdamiska iibsaday intaas iyo sidoo kale aanay ka iloobin biyo ayuu u gabanaya mise biyo ayuu u cabiyaa in meelihii farada badnaa uu iibsaday xasan sheekh maxamuud oo dhulkii dawladda danta guud ay lahayd in maanta la iskala soo tagay oo imaaday xaruntii lagu doortay xaruntii inta badan ay ka dhici jirtay 4 sano oo qori isku dhiibka sida caadi u ahayd dawladda Soomaaliya ama dastuurka Soomaaliya caadi u ahayd in halkaasi loo wada laabto marjacna u ahayd in halkaasi lagu soo doorto madaxweynaha soo socda 4 sano hadaba daawade adiga muuqaalka daawanaysid sidee bay kula tahay 70 jirka kaliya lacagta ka soo hartay xasan sheekh maxamuud maanta dalka madaxweyne u ah in qaranka Soomaaliya uu ceebiyay in sharaftii dawladii ay lahayd ama sharaftii dawladnimada lagu yaqaanay oo dhulka uu la galay sidee u aragtaa adiga fadlan wixii fikirkaadi faalada qaybta hoose ee comment-ga nagu dhaaf halka aanaga daawanaysid waa channelka YouTube-ka ee Man Official hadii aad hore inoo joogtay oo ku maasantahay hadii aad nagu cusub tahayna fadlan channelka waa channelkaadi subscribe dhoo si uu ku soo gaaro muuqaal kasto aan u soo dhigno waa hagaag hadaba waxa la qariya aniga ay ugu imaan wixii inta badan dawladda ay mudan tahay in lagu sheego oo la dhaho waa waxan way mudan tahay waa toos ay u abaarina laakiin wixii bulshada Soomaaliyeed ka qarsoon wixii bulshada Soomaaliyeed ay xog aan u heenin ayaa halkaan si toos ugu soo gudbinaa mucaaradnimihii muxaafadnimihii kaliya waxa ahay wixii danta ummada Soomaaliyeed oo in halkaan ku soo gudbino hay ugu dhaliilin marka hadii runta aan soo sheegay hadii aan daaha runta ka soo qaaday asliin ka waa mucaarad laakiin wixii danta ummada u ay halkaan ku soo gudbinaa waa hagaag hadaba inta badan waxa ogeyn dhul fara badan in xasan sheekh maxamuud oo dawladda ay lahayd in uu iibsaday hadaba waxa maanta ognahay ama maanta miiska saaran oo lagu kala baxay teendada Abizonia halka ay ku taalay ganacsato ayaa laga iibiyay hadaba inta badan bulshada Soomaaliyeed kuma baraarugno maanta in teendada Abizonia lagu kala wareegay oo ganacsato ay xoolo iyo xaraash taban ay ka siiyeen madaxweynaha kaliya ka soo hartay in uu ummada kaliya lacag uu ka dhax sameeyo hadaba waxaan ogeyn madaxweynaha in uu meelo fara badan soo gacamariyay hadaba meesha uu doorashadii madaxweynaha uu ku laaban lahaa oo maanta uu yiri maya laguma laabanayee iisu iibiya waxaan ogeyn madaxweynaha inuu iibsaday carwada qaranka in uu si toos ah u iibsaday waxaan ogeyn dhulkii masaajidka isbahaysiga qaybta hore cidi taqaanay in uu madaxweynaha iibsaday oo ka iibiyay ganacsato Soomaaliyeed waxaan ogeyn in uu dhulkii xaafadda kalluunka oo madaxweynaha iibsaday waxaan ogeyn xaafadii damdamiska inuu madaxweynaha iibsaday hadde ma biyo ayuu u kabanayaa maanta in uu iibsado halkii doorashada ee teendada Abizonia waa maya mar hore waxa idin lahaa arintan qabasho ay leedahay arintan Soomaaliyeed mucaaradi muxaafad arintan ha loo istaago madaxweynaha gacanta laga qabto hadaba inta badan maanta waxay maraysaa in madaxweynihii uu iibsado teendada Abizonia hadaba hadaad wax ka ogeyn muwaadinka Soomaaliyeed oo maanta marqaati ka ahow in dhulkii teendada Abizonia lagu kala baxay oo ganacsato ay ku kala baxeen hadaba beesha caalamka ayaa si toos ah u soo faragelisay oo ka war heshay 70 jirka kaliya lacagta ka soo hartay in uu meeshii
doorashada ummadda ka dhaxaysay oo waliba wax yar u jirto xarada xalane beesha caalamka markay ku baraarugtay waxay isla markiiba ay u dirtay ciidanka ATMIS halkaasi ammaanka waxaa la wareegay guud ahaan ciidankaasi laakiin meesha waxaa ku fashilmay oo lacagtooda ugu jirtaa ganacsato kaliya ay ma ahan wax kale aan u cuntimin in meelaha muhiimka ah hadhowdii ay ka dhigtaan hadaba ganacsatada xataa waxay rabeen in meeshaas ay u qorsheeyeen in ay ka dhistaan hotel hadaba beesha caalamka ayaa ciidankaasi soo dirtay halkaas la wareegtay teendhada Afisoonia halkaas ayaga ayaa joogo balse xasan sheekh maxamuud iyo qoorta waxa isku jiro dulaaleyda u kala gaday ganacsatadaas inta badan waxa ognahay meelo fara badan inuu madaxweynaha soo gacan mariyay inta badan waxa ognahay dhulka danta guud inuu madaxweynaha soo wada xaabsaday inta badan waxa ognahay hooyo Soomaaliyeed ama abo Soomaaliyeed ama arday inta badan ardayda kamida ama ardayda Soomaaliyeed in ay arkeen bulshada Soomaaliyeed in ay cabanayaan in booskooda ama halka ay deganayeen saaka ay cagacagaf dabadu gashay waxa marqaati ka eedeen ummadda Soomaaliyeed marqaati ay ka eed in gabar saaka u kala haday iskool oo waliba imtixaan aadi markay ku soo laabatay xaafadii ay u soo laabatay meeshii cagacagaf la mariyay oo jiingadii iyo dhulkii ay kala garan weysay waxa marqaati ka eedeen in hooyo Soomaaliyeed oo calaacalayso ama abo Soomaaliyeed calacalay dhahayo wal ibarkii waxa marqaati ka eedeen in ummadda Soomaaliyeed oo talada dalka u hayo 70 jirka Xasan Sheekh Maxamuud in maanta ummadii uu barakay hadaba sidaas dawladnimo miya hadaba sidaas qarannimo miya hadaba sidaas Xasan Sheekh Maxamuud maanta mucaaradow hal meel ugu soo wada horjoosta oo odayga gacanta hal la qabto oo runta loo sheego hadaba dawladda uu talada dalka hadda hayo 70 jirkaas waxa uu haray waa 1 sano iyo 4 bilood 1 sano iyo 4 biloodna waxa uu ku gacan marin doonaa meelo fara badan oo muhiim ah meelo fara badan oo istiraatiiji ah dawladnimada meelo fara badan oo bari ka maalin laga soo wada qeylin doono hadaba guntii gunaanadkii barnaamijka ko dhaxda ugu sii jirno madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud tala iyo tusaalo inta badan shacabka Soomaaliyeed way siiyeen tala iyo tusaalo way siiyeen dadka u ah la taliyaasha hadaba waxaan ogeyn shirkii Switzerland ugu soo laabtay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in uu rag uu teetalkiisa ahayn hataa uu la kulmay agaasimayaal in uu la kulmay fanaan in uu la kulmay YouTuber in uu la kulmay xitaa lacagta lagu bixiyay dawladdaas ama qarashka ay ku bixisay safarkaas kaliya iyo meesha uu tagay ismalaha tani dawladnimo laguma sheegi karo sharafkii Soomaaliya sharafkii dawladnimada izigii iyo karaamkii loo hayay waxa dhulka la galay 70 jirkaas hadaba daawada sida wararkii siday kula tahay falan qaybta commentiga mar kale inoogu dhaaf iyo sidoo kale muuqaalkan like ka iloobin hadii guntii gabagabadii aan la socotay barnaamijka kun iyo kow jiro kuma san tahay muuqaalku waa muuqaalkaadi YouTube-kaadi man official hadii aad ku cusub tahay subscribe hadii aad horey noola joogtaan kuma san tahay hadaba maanta waxa idin soo gudbiyay marqaati ka tihiin in dawladda Xasan Sheekh Maxamuud meelo fara badan ay soo gacan marisay ay maanta ay ku dartay teendhada Afisoonia balse beesha caalamka oo walaac fara badan ka muujisay arrinkaas ayaa ciidamo dul dhigtay halkaasina la wareegay in ay gacanta ku hayaan ilaa inta laga gaaray doorashada 2026 intaas ay ku soo gabagabeynaya wixii soo kordha halkan ayaa si toos uga socon doontaan sidaas iyo nabad gelyo